السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتو عانو وناكسان خيارتا قيمها يا قدرين تمدن اي كسو دواذا وروحي عن تيغان كيدين كايني وانا دي لسعوسين دونو اني وافايسا محمد قطبادا وركي كايدين كو هينانا وحا كامدا كلوينيه وضاتشيكا يا حكومة دولة ديغان كسومال دي لوغا ريسان يا هرمارك نبتكريادا يا مامل كسوطان او ولي هالكيسي كسي سعدا injineero ka socda xukuumadda deegaanka Soomaalida oo gaaray dhismaha qadiimiga ee Ustaad Sayid Maxamed Cabdillah Xasan kaas oo ku yaala gobolka Qoraxay si ay u soo indheeyaan dhismaha si kharashka ku baxaya waxa isa soo taraya aragtida iyo saameynta ay ku reebtay shacabka deegaanka xasuuqii ay u geysatay shacabka deegaanka kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah wararkaan idiin hayno oo kooban qodobadaas iyo qodobo kaleba u diyaar garooba khiyaaray kulan weynihii wadatashiga shacabka iyo xukuumadda wali halkiisii ka sii socda isagoo maanta dareenka bulshadii kulan weynahaasi ka soo qayb qashayna uu aad u bedelay dhibaatooyinkii iyo tacadiyadii ay u geysatay Ubbo kadib markii goobtii kulankaasi la hor keenay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi arxandarrada geystay iyo kuwii loo geystayba sida uu warkan inoogu faahfaahinayo Xasan Ciga Cusmaan waxana yagoonti abajaclayde waxana yagoonti abajaclayde inta lagu ardilaye wali ooyite urku taala qaba wali ooyeyso urku taala qaba waxana yagoonti ubaduflayaashiyo waxana yagoonti ubaduflayaashiyo dhawaqan idin soo gaaraya ee uu galbinayo codka murugadu ka muuqdo waxa uu ka mid yahay raadka galay taariikhda madow ee deegaanka ee uu sababay nabadiidka ka ganacsada dhiigga shacabka nabadda jecel ee aan waxba galabsan oo aan dhaceen haddii ayna xukuumadihii hore deegaanka uga soo talin jiray aysan ku mashquuleen horumarinta danahooda gaarka horumarinta muraadka gaarka ah ee ay ku sifoobeen xukuumadihii hore waa seeska dhibaatooyin badan oo deegaanku ka soo kabanaya kuwaasoo ah dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban inay nabadiidku ku xooganaadaan deegaanka ka hor intayna xukuumadda waqti xaadirkan ka arrimsa deegaanka aysan go'aansan aasaasidda ciidamada gaarka ah ee deegaanka oo garab iyo gaashaanba u noqday shacabkii ay dayaceen xukuumadihii hore ayaa waxaa badnaa dhaawacyada halista ah ee u geysato caruur dhalinyaro haween iyo waayeel intaba kuwa ay dileenna kaba tiro badan intii ay dhaawaceen xukuumadda deegaanka Soomaalida ee uu hogaamiyay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar qodobada ay muhiimadda gaarka ah siisay waxa ka mid ahaa xaqiijinta amniga bulshada deegaanka si meesha looga saaro dhaqanada bani'aadamtinimada ka baxsan ee Ubbo hore ugu geysatay dadka rayidka iyo in sidoo kale si buuxda noloshooda loo damaanad qaado caruurta ay waalid tirtay Ubbo iyo haweenka ay odayadoodii u balaysay qodobka kale ee xukuumaddu mudnaanta siisay ayaa ahaa in burcadan dambiyada geysatay la soo qabto oo sharciga la hor keeno dhaqan celina loo sameeyo maadaama lagu qalday afkaar guracan iyo in sidoo kale la barbar wado ballaarinta adeegyada asaasiga sida biyaha caafimaadka waxbarashada wadooyinka iyo wixii la mid ah kuwaas oo sanooyinkii ugu dambeeyay laga gaaray natiijooyin wax ku ool ah oo lagu diirsado haddaba kulan weynaha wadatashiga shacabka iyo xukuumadda ee sii xoojinta horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee kulmiyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xukuumadda heerarkeeda kala duwan ayaa waxaa la isku qaatay in sanad walba bisha Hilaar shanteeda loo calaamadeeyo inay noqoto xus loogu baroordiiqo xasuuqa shacabka ay u geysatay Ubbo sida darteed ayaa kulan weynahan waxa hor yimid caruur iyo dhalinyaro mustaqbalkooda fiicnaa ka hor intii ayna Ubbo si naxariis darro ah uga jarjarin qaybo muhiim ah oo jirkooda sida lugaha iyo indhaha Maxamed Cabdulaahi Budul oo ka mid ah da'yarta ay Ubbo curyaanka ka dhigtay ayaa waxa uu lagu yisay miciinka u noqon lahaa ku waayay isagoo oo geeli ay lahaayeen ceel u aruuriyay si nabadana u soo fuliyay waxa dhexda u joogsaday kooxdan
oo damacday inay geeli u waday xoog ku malaan balse markii uu diiday ayay lagu hiisii qaaliga ahaa gudunka ka jarjareen. bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay, dhammaan dadka meeshan isugu yimid, gaar ahaan madaxda dowladda deegaanka Soomaalida ee u horeeyo Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyo dhammaan qurba joogta ka soo qayb gashay shirkan. aniga magacay waxaa la yidhaahaa Maxamed Cabdullaahi Budul. waxaan u dhashay degmada Laagida, gaar ahaan qabalaha Qudhale. qabiilkayga waa Timcase, reexad aan ka ahayna reex Xasan. haddaan ka sheekeeyo sida waxyeeladu ii soo gaadhay, anigu waxaan ahaa nin reer baadiye ahaa. isla berigaa uu igu dhacay waxyeeladana waxaan ahaa nin ilmo yar oon weyneyn, aniga oo ceelka Gabrile ee ku yaala degmada Laagida dhexdeeda geel ka waraabiyey una fuliyey xaggaa iyo kolole. dadkii waaweynaana magaalada uu iga yar hadhay, ani iyo mid yar oon adeer u ahay baa geelii fulinay. dadkii waaweynaana markaa muunana soo gaadhin. marka kolkaan geelii saa wadada uga leexiyey dusha kolole baa waxay 5 nin baa ii yimid. marka waxay dhaheen caana noolis. marka waxaan idhi geelu iminku soo dareeray, welina ma xigsin macayn. saa u taqaanaanba geelu xigsin wuxuu leeyahay uu ku godlado. marka sida adhig iyo kale ma adu waxyaalaha kale oo kale xoolaha kale ma aha, xigsin u gaar uu leeyahay. marka waxaan ku yidhi iminku soo dareeray. marka wuxuu yidhi gaalnimaad la diidaysaa, ma aha eega geel ma caana lagama waayine, laakiin gaalnimaad la diidaysaa. marka kolku saa yidhi waxooga yar gogaabiyeen. dee anigu laftiga aan yaraadabe waan cadhooday. waxaan ku yidhi gaalo idinka ahee, laakiin waxaan idin lisayaa ma jira, haddaad dilaysaan idila. marka waxay dhaheen waan ku dilaynaa waad sheegtaye, weli waan kuu janno tegaynaa. marka gudintii aan anigu qarqar ku watay een geela ku watay ayaa la ila dhacay. labada lugoodba way igala dhaceen, saadihi iyo meelo badan bay gooyeen. kolley adigu iyadoo in wax yar oo haraga iska haysato, midna lafta iska haysato bay iga tageen. markaana aan doorsoomay oo dhiig baxay. adu markii waa la isoo qaaday, degmada Laagida la keenay. wax yar kolkaan joogay degmada Laagida markii la keenay ba waxaa la iigu yeedhay nin dhakhtar ah oo halka caafimaadka markaa joogay. ninkaasi nin markaa wuxuu ahaa seel ahaa. kabacdi dagaal dhaweyd baan maqlay inuu ku dhintay. nin qabiilkiisa dadin sheegana reer Shoor ahaa, in Sheekh Suldaan baa la odhan jiray. marka ninkiiba irbadii u horeysay ugu dhuftay baan anigu markaa hadee maanan islahayn uu ka tirsan yahay, laakiin aad ii xanuunisay. markaasaan ku idhi aabay ninkani wuu idilayaa iga daa. aabbahay baa ii naqay oo ila yaabay. kabacdi aduu waan diiday. ninkii dad kale ay turqi jiray berigii dambe. aduu lugahaygii mid baa Laagida lagu aasay, midda kale waxay ku hagaagtay meel lafa oo lowga mayna ku hagaagin. marka meeshii laga gooyey. adu markii dambe waa la isoo qaaday, dhakhtar baa xaala ay keenay Herar. aabbahay iyo hooyadayba ay keenay. marka halkaasaa lagaga jaray labadii lugood. lugtii go-naydna si fiican loo gooyey, tii kalena laga iska raaciyey wayba go-nadyada lafteedu. kabacdi halkan jigjiga markaa nimid, bil iyo 6 habeen Herar deganayna. Herar ii leeyahay waxa laga soo qaaday jigjiga lay keenay, hooyadayna dhimatay. marka anigu waxaa weeyaan xilliga nin reer baadiyahan ahaa, aan yaraadabe. marka anigu xilligii anu imkaan ka fiican tahay baan isleeyahay, sababtoo ah waxbaan bartaa. waxa weeyaan hadee nin waxaan ahay adduunka la socda oo iyaga aan islahayn ba cid baa kaa fiican. marka alxamdulilah baan leeyahay. manaha isagu manaha yani isagiyo dhowr kale markaa ahaayeen maanta yani dee gacan qaadka haade manaha way hoos martay. manaha gudinta mid baa marka nin yaroo halkii joogay oo Cabdiraxmaan loo dhigay. marka wuxuu yidhi oo fooljeex qabiilku macnaha u ahaa runtii reer Amaadin buu ahaa. reer Amaadin wuxuu ka sii ahaa reer Sabatar Jaraar buu ahaa. waxaa jirta marka nin yaroo halkii joogay baa wuxuu yidhi maaragtay gudin
maxamed keligii maahine boqolaal kale ayay sidan ugu ciyaareen mustaqbalkooga sidoo kale qaar kale oo ka mid yahay muwaadinkan indhihiisii qaaliga ahaa ayay ka tuureen oo waqti xaadirkan waxba aan arki karin qabiil ahaan waa qabiilka waa reer cabdille gaar ahaan maalinguur oo reer guulada oo ah reer dalguulad degmadaydu waa aan ka soo jeeday waa isla fiiq anigu waxaan ahaa macallin iskuul ayaan ahaa saas daraaddeed waxaan welibana markaas anoo xiisad aan ku lahaan jiray tabarucaad ah dugsiga hoyga isla gobolka fiiqeed howlahaas ayaan ku dhex jiray isla habeennimo bishii 2003 taariikhda dalkeena hooyo markii ay ahayd 2003 bishii 7 aniga oo maraya meel dariiqa ayay gabadh ordaysaay iyo nin istaba ordaya iga hor yimaadeen la wiiloo kale inana way ila socdeen gabadhii baa kolkay anagu nin korkoona arkay intaan usoo jirnayna dhowdahay ayuu ka istaagay gabadhii baa isku kaay marmarto tiri ninkan iga reeb ninkii isla reebitaankii aan ku soo soconnay aan la hadalay waan garanaynaa ninka waa nin rafiiqada halkan isla goobtana wuu fadhiyaa magaciisuna khamriilaal ayaa la yidhaahdaa isla markaa iyada ah soo dhawaansho aan u soo dhawaanay wuxuu nagu soo tuuray bam waxaan ku waayay anigu laxadkayga qaaliga ah dhaayaha ama aragtida ama indhahayga ayaan ku waayay runtii waxaa jirta laxadku wuu kala waxaysan yahay wuu sii kala dardaran yahay laakiin laxadka indhaha anuu ma aaminsan laxad la midaa jira haddii kala dooro la yidhaahdo indhaha wax la midii ma jirto waayo dhe kii cadowga ahaya imika ila fadhi idinkood aragtaan balse anu ma arki karayo hadduu xitaa kiwisaa ahaa ayaa kuwii nooca ahaaba haddana inay iskay raaciyaan haddaan walow kan laga ilaalinaya laga dhowraya oo laga heetinaya inay iskay raaciyaan anigu saas ayaan ahaa waxaa khamrina laygu bixiyey anoo 8 jir lay bixiyey sidii aan khamrida u cabayay aanu dagaalamayo yani dagaalka faraabadnaya fiiqmid fiiqna waa dagaalkan ka dhashay ahayd yani reer sidaan la degnaano maalin guur ahaan yani niman raashin marka aan ka tirsanaa laakiin biina garasaba tarbana leeyahay يعني سدا تمركي نلاشيدي با baadiye isu dhintay ka baadi waxa weeye obo bomkii way soo dhibtay bomkii markay soo dhibtay ayaan sidii nin waalan baan maalinkii oo dhan iska dhigay Abdullah ilka Casa loo dhanay Abdullah ilka Casa ayaa loo dhan jiray ninkay soo dhigay bomka wuxuu ahaa waan malayn reewas ko shin inuu ahaa waan malayn xaga garbu ka soo jeed كبعد بامكي ويلشن يعني ما نكون واحد سؤالان ملاذ جيب صدبا ده فيق قبل بايع صار بحس نكي والله ده ما أنت ماشي كوار كيسي ما أنا ويا عرتي بقى حدا كتب قاتي وكتب توري محمد ظاهري اللي هو ويله ولا صعدا أيها يقولي بتي مركا إياه قصة هانكم أنا سعنانيو لكن كل كيد عفن أو سيد عفن بامكي توري محمد ظاهر مركا دبا لكن بمكي دعدي يقولون نجا قاعد يقولون ساوسا جاب قرحي يعني دحدي وانا واحد دحدي فقط ايا قرحي عندها يككلن مركا طبعا وين اللي اذان باب المذيبه كبعد سيدي بان وبو تجي صحوه ما سنت ايفيدنس لمركي قري waxay dhiban iyo bad bay dhiban hayeeshee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay haysaa oo tiro badan oo dagaal lagu soo qabtay iyo qaar kale oo isa soo dhiibay kadib markii ay fahmeen in waxay dilayaan uu yahay dadkoogii iyadoo ay kamid yihiin kuwan la hor keenay kulan weynahan kuwaas oo dhaawacyo halis ah iyo dhimashaba u geystay qaar kamid ah dhalinyarada haweenka iyo waayeelkaba iyagoo ka qaybgalayaasha kulan weynaha hortooda ka qiranaya dambiyadii naxariis darrada ku dheehneed ee u geysteen qaar kamid ah isla dhalintii aan ka soo hadalnay أنا كأري لجوني أنا أري نسيه أبامي بأرمين أربعين قبل يستاج أربعين حبات كل رفتان بنك أربعين كل رجال بي ينتع بيت لين بي أنا حبات لي رفتان ويين وداوعين وارون كير سيدو شيء جيو أنا كم قاعد جوا حالي لها إيد سلوب محمد بالي هذا قبل كنا وافيق ويا استنتجمد وافيق ويا قبل كي جوا حوي وري عبد الله يا رهان مالنجور بنا هاي هوس دي اللي سيدهنا ريور فقولت بنان أنت كبعدي وحاد شرتا هذا السيد وصار دينا هي كيري وشيء هي وحقيقي لقد أنا قاسميني
anigii oo ka tirsanaa muddo fara badan ururka budhcadda ahaa ee ubba loo yaqaana ka tirsanaa ani waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi xuseen axmed waxaan ahay gobolka fiqeed gaar ahaan degmada sagageed naftaydinoo abraahin ururka budhcadkaana 6 sano ayaan ka mid ahaa kan yar gacantiisa anaa lahaa anaa xabadda ku dhuftay ninkaa ii tulibhina amarkii u bixiyey anna xabaddan lahaa bay ahayd ta kale meel lagahida ka shaysa dagaal aan ka gallay oon dad ku layna baa jira annagana dad badan naga laayayna way jiraan kan yar gacantiisana anaa lahaa dadweyne marka hore waan idin salaamayaa magacayguna waa axmed cabdi cabdulaahi xuruur waxaanan ahay nin reer xirsiya oo banax cabdilaa marka hore waxaan salaamayaa madaxweyneena cabdi maxamuud cumar siday wax igu dhaceena anigu waxaan ahaa wiil yar oo ardaya oo dugsiga shacabsalaan dhigta kabacdii markii ayaana la soo kaxiyay hambalyadii dowladda iyo gumboodkii ayaan kasoo qayb galnay haddii aan kasoo qayb galnay waxaa nagala kulmay meeshii qolada ubo ay qarxisay bamkii ayaa igu dhacay aniga oo lugaha iga gooyey kabacdii walaashayna meeshii ayay igu dul dhimatay markii dambe ayaan bogsan waayey markaan bogsan waayey madaxweyneena cabdi maxamuud cumar intuu dalka qabsaday ayaan aniguna uu dhakhtar igeeyey dhakhtar ilaa iyo herar iyo adhisaaba ayuu i waday kabacdii madaxweyneena cabdi maxamuud cumar ayaan ku bogsaday intuu helay madaxtinimada dhibaatada iga soo gaadhay hayaa gumbood dhibka iga soo gaadhay dhibaatooyin badan baa iga soo gaadhay gabadhayda maydkeedii wiilkaygoo caga go-an baan arkay haddana gabadhaydii oo qolka maydka lagu tuuro taalaan arkay wax iga dhex maro iga qaadan waayey wiilka lugihiisii iyo gabadhii baan isla soo qaatay markaan isla soo qaatan xaafadii keenay yarkii yaraana dhakhtarkii meeshii aan kaga imid sidii gabadhii kolkii lagu aasay ayaan halkii dhibaatooyin badan kala soo kulmay haddaan kala soo kulmayna madaxdii hore wallaahi wax qumanay ii qabatay ma jirin cabdi maxamuud cumar madaxweynaha allaha noo daayiyo cadowgiisana allaha jabiyo cadowgiisa allaha jabiyo inta daba guraysa allaha rogo ubba u horraysa muduruq allaha ka siiyo baman baa naloo soo dhiibay jigjigaad aadaysaan gumbood bisha la yidhaahdo oo 20 bisha ah yaa macnaha madaxdu ay shir u qabanaysaa dadka halkaasaad aadaysaan midheen waan soo aadnay anigu markaan tuuray kaygii u horreeyey madaxweynaha agtiisa ku dhacay isla xilligaa markuu kayga dhacay anigu waan baxay marka waan dhaqaajiyey waxaa kale oo tuuray isaguna oo xaggaa ka tuuray nin la dhihi jiray bisle oo kaamilin gurka ayaa isaguna tuuray maya cabdibasbaaskii baa tuuray cabdibasbaaskii ag taagnaa cabdibasbaas baa tuuray isaguna oo ku tuuray xaggii kale ee jaranjartii maamulku taagnaayeen kii marka reer amaadin cabdirasaaq asaguna wuxuu ku tuuray meesha la yidhaahdo dadkii dhexdiisa shacabkii dhexdiisa ku tuuray si kastaba ha ahaatee ka qaybgalayaasha oo u adkaysan waayey ficilada naxariis darrada ah ee u geysteen da'yarta mustaqbalkoogu ifaayey haweenka iyo duqayda ayaa siyaabo kala duwan uga damqaday qaar ayaa xakamayn waayey ilmadii oo baroortay qaar kalena dibinta ayay qanin cadho iyo ciil aawadeed halka boqolaal kalena ay la suuxeen dhacdooyinkan oo 22 ka mid lagu daweynayo cusbitaalka halka qof kale oo magaciisu ahaa cali budul Allahu naxariisteena uu ku geeriyooday dhimashada iyo dhaawaca faraha badan inuu soo gaaro shacabka deegaanka ayaa waxa uu sabab ahaa in maamulkii xukuumadihii hore ee looga fadhiyay inay sugaan amniga iyo nabadqabka shacabka ayaa qaarkoodba waxay ahaayeen nabadiid la shaqeeya ubbo taasoo keentay in nabadiidnimadu ay dhex gasho qaabdhismeedka dawliga balse kadib markii xukuumaddu shaandhayn iyo baaritaan dheer ku samaysay qaabdhismeedka dawliga ah ayaa waxaa la helay xubno fara badan oo uu ka mid ahaa hogaankii nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee xukuumadihii hore mahdi ayuub guleed oo kadib markii uu ku caddaaday dembigan xabsiga zuway loo taxaabay islamarkaana waqti xaadirkan ka soo baxay mahdi ayuub oo kulan weynahan ka hadlay ayaa sheegay in isagoo hoggaan nabadgelyo ah
oo maalin walba magaalada Jigjiga oo ah xarunta dawladda deegaanka Soomaalida uu qarax ka dhici jiray isla markaana xukuumaddu uu ka tirsanaa iyo isagu ay ku guuldareysteen inay sugan nabadda iyo amniga dadka ka sugayay inay u xaqiijiyaan nolol taam ah oo amnigeedu sugan yahay balse qaraxyada iyo xasuuquba ay sii socon lahaayeen buu yiri haddii Mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu xilliga noqonin hogaankii nabadgelyada Mahdi Ayuub waxa uu xukuumadda waqti xaadirkan ka arrimsa deegaanka ee uu hogaamiyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ku amaanay sida uga soo dhalashay kaalinta ay shacabku ka naawilayeen ee isaga iyo xukuumadihii horeba ay ku guuldareysteen waayahay maalin walbaba magaalada gudaheeda qarax baa ka dhacay Cabdullaahina madaxweynuha aniguna waxaan ahay hogaanka nabadgelyada Cabdi Maxamuud Cumar kama cabsan hayaan asaga haddii uunan asagu waqtiga uunan iman lahayn oo waliba hogaan kolka madax xafiiseed buu ahaa kolka investmentga yaan filahay inuu joogay xafiiska maalgelinta haddii markii aan hogaan laga dhigi lahayn arintani maanta halka ma soo gaadheen waayo ceel bay ku dhacday wax galbaday bay ahayd waqtiga asaga Cabdi Maxamuud Cumar kaasi haddii uunan iman lahayn wallaahi wa billaahi wa tallaahi inaan waxba laga qabteen nimankaas inaan laga qabteen xilliyadii hore ee xukuumadihii dayacay horumarinta danaha gaarka ku sifoobay ay deegaanka hogaaminayeen halka qaarkoodna ay laba wajiila ahaayeen oo ay marna soo gashanayeen shaarka dawladda marna shaarka nabaddiidnimada ayaa waxay u geysatay shacabka deegaanka xasuuqyo kala duwan iyagoo waliba dadku ay hurdaan goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin Gunagado Cobolle Dhoobaweyn Gudis Lehelow Dhagaxmadow Jigjiga Cayuun Fooljeex Barajisaale Goljanno Buladari Jeerinka Abaqorrow Mulla Sidan Bulaale Bundada Daakhato Caleen Garsaaley Lagahidda Horahawd degmada Dhanaan oo siiba ah tuulada Shiniile iyo waliba tuulooyin kale hayeeshee xukuumaddu markii ay aasaastay geesiyada liyu booliska waxaa guud ahaanba deegaanka mar qudha laga bogsaday walaaci laga qabay ururka nabadiidka ee Obo taasoo keentay in waqti xaadirkan doc kasta oo kamid ah dawladda deegaanka Soomaalida oo horumarku isgaadho isla markaana shacabku ay ka marakacaan horumarka iyo nabadgelyada iyo waliba maamulka suban ee uu ku talaabsaday deegaanka Soomaalida Ethiopia idinku dil iyo kursi baad leeyahay bantiina anu wixii igu daraa wuxuu ahaa anoo xarunta dhaxa ku sugan yaa waxaa noo timid xoog nin la yiraahdo Maxamed Kaafi oo kamid ah qoladii maarmaar ka soo gashay oo hawlgeliyay ciidan meelahan Gosoley agaarkeeda yaa waxaan soo gaarsiiyay idinku dumar baad ka hadlaysaan dad la dilayay xayawaan inuu waxyeello u geystay kufsi inuu geystay yaa naloo soo gudbiyay anu waxaan kamid ah guddigii loo maray halka ee leeydi soo eega halkii baanu tagnaa noo 3 xubnooda oo naloo diray reerkii baanu la kulanay dib ku qabsaday marka reerkii waxay dhan waxna gaaray mala waxba idin sheegi mayno anaa si hoos u warsaday islaantii xoolaheeda dib ku gaareen waana inta la kaftameen meel fadhiisiyay waxaan ku dhaano kaliya ii sheeg cidna u sheegi maayo waana qarinayaa islaantii waxay ii sheegtay xilli ari uu soo barqa fadhiistay idaha baraarka yarka waa laga reebaa in lax kamid ah idihii baraarkan dhalay ay xirkan ka ciidaysoon laxdan ay soo gaar lahayd geedkii islaantii way tagtay waxay aragtay laxdii iyo ninkan oo isku khariban bay aragtay kadib islaantii iyada khatar gashay waxaa la yidhi islaantan waa jaajuusad maxay way kan maxamed Kaafi baa la yidhaahdaa ninka qabiilkiisa waxaan filayaa inuu dhagax buur dhashay aad uma huba qabiilkiisa isma qabiil barano laakiin ciidankii baa jooga u gali jiray oo inoo sheegi karayo oo garan karaya bismillaahir rahmaanir rahiim ninka reegow yarku sheegayo waa runtii sidaa uu sheegay bay ahayd laakiin anigu waxaan xogteeda hayaa ninkii iska lahaa neefkan dhibkaas ku dhacay iyo reerkabo ninkan horta falka geysanay Maxamed Kaafi uu sheegayo waa nin reer saaqa reer dalgulada qolo baciisa la yiraahdo way ariga waxaa lahaa nin isna reer dalgulada barre Ibrahim Axmed Xaashi la yiraahdo aniga waxyaalaha u baygeysatay aniga abay oo xogsaniya ayaa habeen isagu midna loo keenay marka abay aniga yaal waxaan ka codsanayna ragii abayaal tire ee abayaashana dilay ina sharciga noo soo istaajaan oo qiimeeyaan aniga
aabbayo annaga loo shaqo tegay ayay u bedishay isagoo meyd ayaa naloo keenay taas ubba waxaa leeyahay inuu ilaahay caloosha indhaha ka soo rido ilaahay kuwa seelka taageersan ee hadda inagu dhex jira inuu ilaahay kursiga hoos ula dumiyo waxaa kaloo leeyahay ubba waa injirley ubba ilaahay amariyo ubba waxay taariikhyadan bay taagan tahay ubba waa dhiigcab ubba waa dhiigcab hooyooyinka ayaa say u xidho iyo ciyaal annaga nalaagayago agoontimaysa mooye ubba waxay faa'iido inoo leedahay ma jirto abbay wuxuu ahaa nin shacaba wuxuu ahaa nin anqaaro aroor ayuu dhahay abuuxba inuu doon ayaa lanoo keena isagoo mayda waxaynaga codsanaynaa inuu yaabaha naga dinayna naga arkoostaan yaabaha naga dhiga anigoo saddex jir ayay wiiwiinayga dileen ilaahay shubtada baadhaydankiya inuu ilaahay guraanina marismaanka ciyaalkiisii asagoo ilaahay inay baras ka soo baxa waxaa isu soo taraya aragtida iyo saameynta ay shacabka deegaanka ku reebtay xasuuqii ay ubba u geysatay shacabka deegaanka sida uu warkani inoogu faahfaahinayo cabdi cumar taniyo intii uu bilowday shirweynaha wadatashiga ee dhex maraya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo shacabka ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo laga wada hadlayo arrimaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee deegaanka Soomaalida Itoobiya uu ku tallaabsaday iyo sidii aragti midaysan looga yeelin lahaa hadhaaga ubbo ee xasuuqa u geystay shacab ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba xasuuqa ubbo ay u geysatay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayay shacabka deegaanku si aad u sarreysa uga dhiidhiyeen isla markaana ay u soo jeediyeen cambaarin aad u sarreysa iyagoo ku tilmaamay mid waxshinimo ah haddaba waxaa soo taraysa tan iyo intii shacabku ogaaday xasuuqaasi aragtida iyo cambaaraynta ay soo jeedinayaan shacabka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa iyaguna ka dhiibanaya aragtidooda iyo saameynta uu ku reebay xasuuqaasi ay kula kacday shacabka rayidka kooxda ubbo ee canaasirta ku noqotay horumarka iyo deganaanshaha deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan fikirkayga ka dhiibanaya ma garanaysaa xasuuqii ay geysatay ubbo xasuuqaas ay u geysatay dad bermagay ah oo ay ka mid yihiin haweenka uurka lahaa caruurtii duqeydii aqoon-yahaniintii kaasoo loo aqoonsaday shanta hilaarna maalinka ma garanaysaa ay xasuuqa geysatay ubbo shanta hilaar maadaama ay xasuuqa geysatay ubbo horta waxaan leeyahay ma garanaysaa waa shirkad ganacsi ah oo ay 4 nin oo qowleysato dibadda jooga ay ku ganacsadaan dadka dhigooda ay kaga ganacsanayaan taasina waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa haddii la yiraahdo inaan shanta hilaar xus ahaan loo xusi doono mooye ubba dambe aysan jiraynin dadkii ay laayeen ay dhagaha ka gooyeen ay carabka ka gooyeen ma garanaysaa iyo umrihii ay dooxeen laftooda ma garanaysaa maalinteedii la aqoonsaday shanta hilaar ma garanaysaa waxay noogu abuurtay dareen ma garanaysaa aad u qiiro badan oo ma garanaysaa caloosha la huriyay oo xataa maalinkii markii looga sheekeynayay inaan qadaynin xataa ay ma garanaysaa sababtay oo qadadii xataa aan ma garanaysaa aan qadayn kari weyn marka waxaan leeyahay ubbo tacaddi ay u geysatay dadka vulnerability-da barmageyda dadkii ma garanaysaa in wax loo taro in biyaha la siiyo in caafimaad la siiyo ay ahayd ma garanaysaa sood iyo xadhig simin qudur ma garanaysaa ay u qaadatay taasina ma garanaysaa dhibaato loo dul qaadan kara ma aha waa dhibaato annaga laftanadu ay naga go'an tahay ma garanaysaa hadday sii jirto bilahan soo socda inaan ma garanaysaa laftanadu aan naf iyo maalba u horray ma garanaysaa hadda ka hor waan u huri jiray haddana waan u huraynaa inaan ma garanaysaa aan ubbo sidii loo ciribtiri lahaa ciribtirkeeda hadday tahay xog hadday tahay maal hadday tahay xoog intaba inaan ma garanaysaa aan ku dabargoyno si dadka ma garanaysaa vulnerability ee barmageyda loo badbaadiyo waxaa soo istaagay maalinkii dhaweyta shirka oo iga sheekeynayay in carabka iyo dhagihiiba laga gooyay marka ninkaas inuu noolaado mayna rabin de naftii keliya bay u daayeen de maxaa u yaala in carabka iyo dhagihii laga gooyay marka waxaan leeyahay shirkadda ganacsiga ilaahayna ka baryaynaa inuu garanaysaa si ugu dhaqso badan looga soo afjaro run ahaantii markii aanu ka daawanay muxuu ahaa TV-ga falalka waxshnimada ah ee ay geysteen kooxda isku tilmaamta ubbo
aad baan uga xumaanay tacadiga noocaasa aad baanu uga xunahay runaantii cid kastoo islaam oo arrinka aragtaa way ka danqanaysaa waxaanu leenahay kuwa falalka noocaasa geysanaya in ay ka waantoobaan ummaddoodana iyo horumarkan waddanka deegaanka socdana ay ka qayb qaataan baanu ku waani lahay waa falal aadaminimada ku xun diiniyan ku xun waa falal aad damiirka dadka waayo shirka sidii ka muuqateed arkayseen dhammaan dadku dareenkoodu wuu isbedelaya waayo dad islaamaynu nahay waa falal aadaminimada ka baxsan falalka ay geysteen kooxda noocaas waxaan leenahay dadku waa inay ku taamilo qaataan wax aan waxa ahayn oo ay soo wadaan haba yaraatee ma jirto aad baan wallaahi uga qiirooday dhibaatooyinka iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay nabadiidku waddanka ku hayaan khaasatan markii dadkii dhagaha laga gooyaan aragnay dadkii carabka laga jaray dadkaan aragnay agoontii yaryarayd ee waalidkood la baabiyey markaan aragnay run ahaantii dareen qiira oo aad u adag bayna gaarsiisay waxaanan aaminsannahay dhibaatada iyo qoriga iyo xabadda ay xambaarsan yihiin inayna waddanka xal u ahayn in ay maaragtay ay caqabad ku noqdeen horumarka kililadii kalena ay naga reebeen muddo 20 sano oo Itoobiyada cusub horumarka ka shaqeynaysay ay dhibaato iyo aaka iyo qori afjaxoon la hortaagnaayeen dadka run ahaantii markaa dareen wadaniyadeed oo aad u adag oo qulubtayda taabtay bay taasi ahayd aad baan uga soo horjeednaa dhibaatooyinka qoriga iyo gumaadkaana waan cambaaraynaynaa hidaar shan waxa loo aqoonsaday in maalintii gumaadka uu baa ay geysatay u yahay waanan taageersanahay waana xusi doonaa insha Allah taala inta yare baaqiga ka hadhayna waxaan aaminsanahay hidaarteeda intaan la gaarin ba in la soo afjari doono haddii la yiraahdo u bawaan maqli jiray hasa ahaatee waxaan intahayga aan ku arkay dibka ay gabdhaha sideeda ay u geysan jireen marka aan u fiirsaday ama TV-ga aan ka daawaday gabdhaha sidaas ay u galeen aan arkayna waxay ugu biirisay naxdin aad u weyn ururkan ama kooxdan ganacsatada ee ka ganacsata dhiiga shacabka ku nool dawladda deegaanka Soomaalida ayaan halkan ka cambaaraynayna kuwa oo caadaystay in ay gumaadaan xasuuqan waxyeeleeyaan dadkeena oo waliba falalka foosho xun oo ay caadaysteen oo ah kuwa guuraca odayaasha sida dhaqankeena Soomaalida oday waa la ixtiraamaa haddana isagoo culamo waa la sii ixtiraamaa oday culamo oo 86 jir ah in ay guuracan qofkii haddana markay qabtaan xubnihii muhiimka ah oo macnihii ka jaraan ama waxyeeleeyaan sida carabka iyo dhaga dumarka uurka leh oo ay dooxaan falalka aadka u foosho xun oo ummadda uu Ilaahay abuuray gaal iyo muslim wax aad loogu xumaada ah xafiiska horumarinta jidadka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa warshada hilibka ee faafan ee dhismaheedu bilowga yahay ka taageertay jidka isku xidhaya laamida iyo warshada uu dhererkiisu dhan yahay 2 kiiloomitir kaasoo ay ku baxayso miisaaniyad ka badan 3 milyan oo bir xafiiska horumarinta jidadka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa tuulada dhagaxle oo ah meesha ay ka socoto dhismaha warshada hilibka ee faafan waxa uu ka bilaabay inuu u sameeyo jid isku xidhaya laamida iyo meesha ay ku taalo warshadu kaasoo dhererkiisu dhan yahay 2 kiiloomitir isla markaana uu yahay mid ay darajadiisu sareyso jidkani uu xafiisku u bixinayo warshada ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalada ay xukuumaddu maalgashiyaasha deegaanka u dhashay ay la garab taagan tahay iyadoo u fudaydinaysa una sahlaysa in ay helaan adeegyada aasaasiga ay markaasi u baahan yihiin ayna waqti xaadirkani warshadani hilibka si degdeg ah loogu sameeyay leyrkii ceelashii biyaha iyo jidkani oo intuba ah kuwa lagaba maarmaan u ah warshada wasiirka xafiiska horumarinta jidadka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Khadar Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay inay xukuumaddu ay ka go'an tahay in ay garab istaagayso cid walba oo wadanka maalgashi ku sameynaysa taageero dhinac walba ay la garab taagan tahay jidkanina uu noqonayo mid xirfadlayaasha iyo cid walba u baahata warshada ay u sahlayso in ay si fudud ay u helaan waxaa xafiiska jidadka dawladda deegaanka Soomaalidu isagoo ka duulaya siyaasadda xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya u taala iyo tan dawladda ee xukuumadda u taala si loo moraal galiya ama loo kiciyo maalgashadayaasha deegaanka u dhashay ayaa xafiisku wuxuu 2 kiiloomitir ugu talagalay oo isku xidhaya laamiga weyn ee gala magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo warshada inuu ku caawiyo ama qaybtiisa ka geysto sidii maalgashadayaasha
wax loogu qaban lahaa isla markaana qaybtii ku aadaneyd ee dowladda looga soo bixi lahaa jidkan oo uu dhammaaday sarfaygiisii isla markaa clearingigiisii ayaa hadda waxaa socda caradhigii kaasoo ka dhigi doona standardiga DS6 loo yaqaano dhinaciisa Dr. Faysal Cabdi Guhaad oo ah mas'uulka warshadani ayaa isaguna waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xukuumadda deegaanka oo isku hawshay buu yiri inaan wadanka ku soo hirtano sidii aan u maalgashan lahayn wuxuuna noo sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ee warshadani aan ku xulanay inaan deegaanka ka dhisna ay tahay maadaama dadka iyagu ay yihiin buu yiri 80% xoolo dhaqato in xoolihii bila faa'iidada wadanka kaga bixi jiray aan suuq ugu sameeyno wuxuuna intaasi ku daray mas'uulku in warshadani ay ku baxayso lacag ka badan 100 milyan oo bir ayna ka shaqaysan doonaan 250 muwaadin oo u dhashay deegaanka ayna qayb laxaad leh ka qaadanayso horumarka deegaanku uu ku socdo waxaa laga rabaa warshadan hadduu ilaahay idmo in 2,000 oo ari ay maalin walba qasho iyo 200 oo dibi inay yoom kasta qasho hadduu ilaahay yidhaahdo bisha Juun meelo badan oo adduunka oo codsi naga codsaday baa jira oo ay ka mid yihiin Masar, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Angola kulligood diyaar waxay leeyihiin inay contractiga la saxiixo oo hilibkii dhaqso u qaataan meesha laga dhoofinayo hilibka waxaan rajaynaynaa inay noqoto airportka Jigjiga ee international noqonaysa maalin walba hilibka soo baxaya waa hilib qiyaastiisu yahay ilaa 30 tan oo hiliba xoolaheenu aad bay u badan yihiin dalkan Ethiopia marka la fiiriyo 50% in ka badan ee xoolaha ah dalkeenu kililkeena laga helaa dadkeenu xoolo dhaqatay u badan yihiin xoolihii suuqa ay geynayaan ay wax ka gadanayaan waa Mojo iyo Nazaret iyo Addis Ababa waa 600 kilomitir inta badan hadday tagaan xoolahoodii biic yar bay ku helayaan iyagoo soo rafaaday suuqa kale waa carabahaas iyo berbere iyo in laga dhoofiyo maxtaro la geliyo oo muddo sugaan hilibkii oo rafaad bay ku tahay wuxuuna intaasi uu mas'uulku ku daray inay sameeyeen goob ku meel gaar oo ay ku naaxiyaan xoolaha si ay u sii bartaan qaababka loo naaxiyo xoolaha si hadhow ay u sahlanaato marka ay hawshu bilowdo warshadu iyagoo xooluhu loo dhammaystiray buu yiri daaqi iyo biyihii ay markaasi u baahnaayeen kasokow horumarka ay maalgashiyaasha deegaanka u dhashay ay ku soo kordhinayaan deegaanka waxay fursado shaqo ay u abuurtay 150 muwaadin oo degan tuuladaasi kuwaas oo xirfad shaqo iyo nolol maalmeedkooda maanta camal manaan lahayn camalka iyagu wuxuu ahaa bilaa shoomeerkii waan ka baxnay shaqada iyadoo fiican iyo xoogayagi iyo maamulka u wanaagsan oo suuban baa noo yimid markaa shaqada si fiican baan u shaqaysanaa annaguna waxtar bay noo yeeleen markaa shaqo manaan haysan masaariif iyo ciyaalka waxaan u qabsana manaan helaykin maanta nolol wanaagsan baan ku noolay shaqada oo fiican iyo lacagtay degdeg noogu keenaan markaa hay'adaasi aad bay wax noogu qabanaysaa annaguna xoogayagii oo aan waxba ku qabsan jirin ayaan si fiican wax nolol wanaagsan uga soo saaraynaa shirkadan wanaagsan ee noo timiday iyo dawladda suuban ee maanta maamulka ana waan u mahadnaqaynaa ee meesha maamulka iyo shaqadaba noo samaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysanay markii hore dhalinyaro bilaa shaqo ayaan ahayn haddana si fiican bay noogu tartay aad iyo aad wax markaas ayaga camal dhalinyaradoo dhan camal way heshay magaalada birta hore bilaa camal baan ka hayn eega laakiin camal wanaagsan ayay noo samaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa warshadani hilibka ayaa aatii u horeysay deegaanka laga hirgeliyay iyadoo ay dhisayaan qurba joogta deegaanka gaar ahaan kuwa degan cariga Mareykanka waana mid ay ku baxayso miisaaniyad ka badan 100 milyan oo bir xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaaliya ayaa soo bandhigay noocyada kala gedisan ee qalabka ay markaasi ka howlgalaan sidoo warkan inoogu faahfaahinayo Faarax Cabdi xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaaday tallaabooyin dhaxalgal sanadihii ugu dambeysay isagoo xafiiskuna bartilmaameed ka dhigtay in la soo afjaro isla markaasina la soo yareeyo baahida dhanka biyaha ee haysato bulshada xoolo dhaqatada u badan ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan kulweynaha wada tashiga shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida dardargelinta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 5,000 oo uhuud ka kala socotay degmooyinka iyo gobolada
gobolada deegaanka Soomaalida ayaa xafiisku ku soo bandhigay jaantus muujinaya dadaalka uu ugu jiro inuu kor u qaado adeeg bixinta dhanka biyaha iyo waliba sida uu xafiisku ugu hawlan yahay in bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanku ay u hesho biyo nadiif oo ku filan. Garwadeenka waaxda dayactirka iyo biyaha Maxamed Axmed Biixi ayaa nooga waramay ujeedada jaantuskan ay ugu soo bandhigeen goobtan iyo waliba qalabyadan kala duwan ee goobtan yaala ujeedada ay kala yihiin. Tendada waxa weeye bandhiga xafiiska biyaha uu soo bandhigay waxayna qayb ka tahay shirka guud ee wada tashiga dawladda iyo shacabka. Saad arkaysid bandhiga guud ahaan oo dhan xafiisku wuxuu ku soo waxdhigay ama ku soo bandhigay waxqabadkii sanooyinkii la soo dhaafay. sidoo kale wuxuu ku soo bandhigay qalabka iyo alaabada xafiisku isticmaalo si uu dadka u siiyo adeega. qalabkan hadda halkan ku arkaysid waxa weeye waa qalabka nadaafadda biyaha. wuxuu isugu jiraa daawadii iyo qalabkii loo isticmaalay biyaha in lagu analysis gareeyo. waa qalab aad u qaali ah looguna talagalay fiildiga in loo qaato. waa qalab sahlan waxqabashadiisuna aad u sareyso. daawadii biyaha buu xafiisku soo bandhigay. saad arkaysid sawirada halkaas ku qoran waxa weeye waxqabadka xafiiska hadday noqon lahayd dhanka nadaafadda biyaha, hadday noqon lahayd dhanka dayactirka ceelasha, hadday noqon lahayd dhanka kobcinta awoodda aqooneed ee degmooyinka, hadday noqon lahayd sidoo kaleeto dadejinta adeeg bixinta ama waxaan ugu yeerno mobile workshopka. halkaan oo kale waxaad ku arkaysaa adeegyada yaryar ee biyaha, mashaariicda biyaha, sidoo kale baahida ceelasha dhaadheer u baahan in loo qodo. waxaad arkaysaa mashruuca weyn ee xafiiska ama dawladdu ay ka dhigatay istaraatiiji oo ah mashruuca biyo ururinta. waxaad ku arkaysaa dayactirkii. sidoo kale waxaad arkaysaa doorka ciidamada liu boolisku ay ka qaataan dhanka horumarinta bixinta adeegyada keliya ma aha ilaalinta nabadgelyada, sidoo kale inay ka qayb qaataan mashaariicda biyaha ee socda. hadday noqon lahayd dayactirka, fidinta ceelasha, hadday noqon lahayd iyo siinta taakulinta ama logistic oo kaleeto. dhankaas waxaad ku arkaysaa wakaaladda dhismaha howlaha biyaha, ceelashii ay qoday, siday bulshada uga faa'iidaystay, qalabka ay keentay, ceelasha cusub. guud ahaan waa waxqabadka xafiiska 20kii sano ee la soo dhaafay. halkan saad kale waxaad ku arkaysaa qalabka biyogelinta ama loo isticmaalo baybiska, qalabkii makaaniga, qalabkii elektroniga. guud ahaan teendadan xafiisku wuxuu ku soo bandhigay waxqabadkiisa iyo baahida qalabeed ee loo isticmaalo dhanka biyaha. xafiisyada horumarinta deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ku muujinayaan jaantusyo kala duwan oo muuqaal qurux badan ka siinaya bulshada deegaanka Soomaalida ee ka kala timid degmooyinka iyo gobolada uu ka kooban yahay deegaanku, sida ay ugu hawlan yihiin iyo waliba dadaalka ay ugu jiraan inay gaarsiiyaan adeegyada horumarineed bulshada xoolo dhaqatada u badan ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan, iyadoo shacabkuna uu diidiila ka muujiyay horumarka ballaaran ee ka socda deegaanka Soomaalida. maamulka magaalada Jijjiga ayaa shaaca ka qaaday in ay guulo wax ku ool ay ka soo hooyeen tartankii magaalooyinka ee lagu qabtay magaalada Adama ee deegaankaasi Oromiya. warkani waxaa faaladiisa inoo haya Maxamed Cumar Cilaabe. taniya markii xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya hirgelisay 4 ismaal magaalo si ay uga qayb qaataan horumarka iyo bilicda deegaanka ay 4 ismaal magaalo si weyn uga qayb qaateen tartankii ismaal magaalooyinka guud ahaan dalka Itoobiya oo lagu qabtay magaalada Adama ee caasimadda Oromiya. tartankani dawladda deegaanka Soomaaliya ay uga qayb qaateen 4 ismaal magaalo ayaa maamulka magaalada Jijjiga guulo waaweyn ka soo hooyay. wafdigii iyo mas'uuliyiintii ka qayb gashay tartanka ayaa mas'uuliyiinta iyo bulshada maamulka magaalada Jijjiga si weyn ugu soo dhaweeyeen xarunta caasimadda dawladda deegaanka Soomaaliya iyagoo kaga hortagay duleedka magaalada Jijjiga. maayirka maamulka magaalada Jijjiga Mudane Suldaan Maxamed Xasan oo isaguna hogaaminaya mas'uuliyiinta tartankan guulaha waaweyn ka soo hoysay ayaa sheegay in tartankan uu ka koobnaa 6 nooc isla markaana 5 nooc ay 3 kamid ah baxeen kaalinta koowaad, 2 noocna ay baxeen kaalinta labaad. maamulka magaalada Jijjiga iyagoo uu ku guuleystay baabuur nooca pick-upka iyo sidoo kale bilado iyo koobab iyo shahaadooyin sharaf. sidoo bana macnaha way ku caddahay shahaado ay ku caddahay kaalinta iyo itemka magaciisa kaalinta tan ay ku caddahay. marka dhammaantoodna waa qaadi karaa waa shahaadooyinkii iyo biladii iyo koobabkii waa kuwan. waxaa kaloo nala jiray isaguna taqaanaay hadda ka hor ballan tahay kaalinta koowaad markii qaariyaaga la isku sameeyey kaalinta koowaad ay gashay gaari gaarigii taqaanaay waa nala guddoonsiyey warqadiisii waa nala siiyey kasaniya. ugu dambeyntii tani ayaa waxa imanaysaa kadib markii xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu ay xoog saartay kor u qaadida horumarinta magaalooyinka iyadoo 2 sano ugu dambeysay ay maamulka magaalooyinka ay ka qayb qaateen horumarka iyo bilicda deegaanka.
injineero ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa gaadhay dhismaha qadiimiga ee Ustaad Sayid Maxamed Cabdillah Xasan kaas oo ku yaala gobolkaasi Qorraxay si ay u soo indheeyaan isla markaana ay u soo cabiraan qarashka ku baxaya dhismahaasi sida uu inoogu sheegay warkani wariyahayaga Axmed Mataan jawiga iyo bilicda wanaagsan noocyada kala duwan ee durjoogta nimcooleyda iyo khayraadka dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waa mid ku habboon daawashada iyo tamashlaynta isla markaana si aad u soo jiidanaysa indhaha dalxiisayaasha ka kala imanaya dunida dacaladeeda hadaba goobaha ay xukuumadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya u qaadatay in laga dhiso goobo dalxiis ayaa waxaa ka mid ah daarta taariikhiga ah ee xarunta u ahaan jirtay halgamagii caanka ahaa Sayid Maxamed Cabdillah Xasan iyo ciidamadiisii daraawiishta abaarihii qarnigii 19aad waxaana xarunta maamulka gobolka Qorraxay ee magaalada Qabridahar soo gaadhay injineero ka socda xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha warshadaha ee dowladda deegaanka Soomaalida injineeradaas oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah maamulka gobolka Qorraxay ayaa si wada jir ah u booqday daartan sayidka oo 30 kiiloomitir magaalada Qabridahar kaga aadan dhinaca koonfur bari halkaas oo ay injineeradu ka bilaabeen howlo shaqo oo dib ugu raadinayaan qaabdhismeedkii hore ee daartan maadaama oo ay xukuumadda deegaanku go'aansatay in laga hirgeliyo goob dalxiis isla markaana daartan dayactir lagu sameeyo gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka Qorraxay mudane Shukri Barisi oo ah madaxa xiraaninta iyo cadaaladda ee gobolka Qorraxay oo aan wax ka weydiinay ahmiyadda dhaqanka iyo goobaha dalxiiska iyo natiijooyinka ay xukuumadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay ku gaadhay howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa tilmaamay in habsami socodka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ay bulshadu ku heshay adeegyo hufan iyo xasilooni buuxda waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka maanta waxaan nimid halkan anagoo wada socno bahdi TV-ga ASTV gobolka Qorraxay iyo odayaashii malka afweyn iyo maamulkii qabalaha magaca afweyn inaan macnaha aanu ku soo dhaweyno oo keeno qolad injineero oo daraasad waday in la soo inay macnaha si loo cusboonaysiin lahaa daartii sayidka taasoo macnaha ay tahay in la soo nooleeyo waxyaabihii taariikhiga ahaa ee hore ee halgamadii ay soo mareen dadkii geesiinta ah ee halgan ka badan ee maanta midhiis aan cunayno guntiga dhiisha oo isaga dhigay marka waxa weeye run ahaantii waxyaabo badan baan aan ka dhaxalay meesha daartii baan hadda joognaa daarta nafteeda markii aan eegnay daartu waxay ka koobneed 24 qol ayay ka koobneed 24 qol bay ahayd marka waxa weeye daar aad iyo aad u qiimo badan weeye waxaana la sheegay xilliga la dhisay xataa inaan biyo lagu dhisino oo waxyaabaha biyaha looga dhigay inaan caano geel maanta caanaha geel waa la socdaa in maanta hadaa dadka aynu ku filan marka wax qabad fiican oo macnaha halgamayaasha ay soo mareen baad annagana marka si loo soo nooleyn lahaa waxyaabaha taariikhiga ah maadaama xukuumaddu ay gundatay in macnaha goobihi taariikhiga la soo nooleeyo intaan injineeradii soo raacnay baan si daraasad loogu sameeyo hawshii loo ogaaday ayaan maanta halkan u nimid maanta waxaa laga dareemayaa waxyaabo aan horey u jirin oo maartay waxyaabihii ay aaseen gumaystayaashii hore oo dhan inay dowladda Itoobiya guud ahaan soo nooleynayso gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida goobihii dalxiiska ahaa ee aad ka muhiimsanaa ee dadkii taariikhiga ay halgamada soo maray ay macnaha raadka ay ku lahayn dhammaan waxa weeye waa kan hadda loo guntaday daraasada lagu sameynayo xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska xubno uu soo diray baa joogo in macnaha daraasad lagu sameeyo taariikhii hore kuwaasna marka loo gudbiyo macnaha in macnaha goobo dalxiis laga dhigo si macnaha caalamku uu soo qulqulo dalxiis loogu yimaado taasoo aan aaminsanahay in macnaha dhaqaale fiican dowladdu ku soo galay annagana ay taariikhda deegaanka oo macnaha dadkii halgamaaga ah ee waddanka soo halgamay la soo nooleeyay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada tuulada malka afweyn ee degmada Qabridahar oo ah goobta ay daartani ku taalo ayaa si aad ah u soo dhaweeyay hadafka wanaagsan ee xukuumadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyaga oo ballan qaaday inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xaruntan dalxiiska isla markaana ay maamulka suuban kala shaqeynayaan soo afjarida saboolnimada iyo nabadidka ciidamada dawladda Xayla Salaase iyo tiimigista Xayla Yamaare marka isbedelka hadda macawistii dhaqanka u ahay dadka ciidankaasi ku caayi jireen maanta waxay maraysaa markii dawladda deegaanku uu dhashay oo cadaadiskii laga baxay oo Itoobiya ay qoomiyadaheedii xuquuqdii qaybsatay qolo waliba hidaheedii iyo dhaqankeed inay soo noolayso macawisihii iyo koodharkii iyo ulihii bakooradda inkastoo xaragadii hore inay soo noqotay oo hidihii dhaqankii la nooleeyay ilaahay baana ugu mahadnaqaynaa maanta nolosha aan ku jiraay iftiin baa noo baxay waxaan hadda taagannahay daartii Sayid Maxamed Cabdillah Xasan xagga nabadgelyada markaan ka hadalno waa meel hawd ah meeshii ciidamada loo soo kaxaysan jiray faraha badan way
waa nabadgelyada xaggeeda ilaahay baan ugu mahadnaqayn. waxaana odayaashani intaa ku dareen in banka Qoraxay oo ah goobta ay daartani ku taalo uu hodan ku yahay wax soo saarka xoolaha iyo beeraha isla markaana laga helo noocyada kala duwan ee duurjoogta iyo waliba khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay ku manaystay deegaanka Soomaalida Itoobiya. hay'adda awda ayaa wada tababar ku saabsan yareynta xadgudubka jinsiga iyo xakamaynta caadooyinka xunxun. warkani waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Xasan. tababarkani oo ahaa mid xoogga lagu saaray sidii loo yareyn lahaa waxyeelada loo geysto jinsiga gaar ahaan dumarka isla markaana loo ciribtiri lahaa caadooyinka xunxun oo uu ka midka yahay gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda awda iyada oo tababarkani ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan oo ka kala socday xafiisyada heer deegaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn culimaawidiinka dhalinyarada iyo xubno kale waxaana tababarkani oo muddo 2 cisho ah socday gabagabadiisii ka hadlay maareeyaha hay'adda awda ee laanta Jigjiga isaga oo ka warbixiyay ugu horeyntii faa'iidada tababarkani iyo dadaalada ay hay'adda ugu jirto ciribtirka caadooyinka xunxun oo uu ka mid ka yahay gudniinka fircooniga. mashaariicda ay hay'addu wada waxaa ka mid ah mashaariicda la xiriira sida social development-ga sida agoonta oo la quudiyo oo la caawiyo iyo la dagaalanka FGM-ka iyo caadooyinka xunxunka ah. runtiina waxaan filayaa workshop-keena si qoto dheer baan uga wada hadalay qaabkii aan u xakameyn lahayn qaabkii aan oo la dagaalami lahayn si maxaa hawshan ayada loo gaarsiiyo meel walbana hay'addu waxay ku dartay mashruuc walba ay fulinayso caadooyinka xunxun la dagaalankooda way ku dartay qayb bayna ka maxaa muhiim ayay uga dhigtay hawsha ayada la dagaalankeedana runtii waan sii wadaynaa. waxaa jira sidaan hore idinku sheegnay anti FGM network muhiim ah oo wax badan oo la taaban kara aan rajeynayno inuu qabto ayaa jira oo ka jira maxaa deegaankeena anti FGM network wuxuu u baahan yahay in la xoojiyo. tababarkani oo ay casharada bixinayeen qabiiro ka socday hay'adda awda ayaa waxa ay ku baranayeen xubnihii ka soo qayb galay tababarkani inta uu socday casharo la xiriira yareynta dhibaatooyinka loo geysto jinsiga iyo ciribtirka caadooyinka xunxun sida gudniinka fircooniga iyadoo inta uu tababarkani socday ay su'aalo kala duwan isweydaarsadeen qabiirada bixinaya casharada iyo ka soo qaybgalayaashii tababarkani si tababarkani uu noqdo mid wax badan laga faa'iideysto. mudane Axmed Dhaqane oo ka mid ah qabanqabayaashii tababarka isla markaana ah shaqaale ka tirsan hay'adda awda ayaa dhankiisa sheegay mar uu waraysi kooban siiyay in hay'adda awda ay markasta ka go'an tahay bixinta tababarada noocan ah si loo yareeyo dhibaatooyinka ay leeyihiin caadooyinka xunxun. geestooda xubnihii ka soo qayb galay tababarkani ayaa sheegay in ay tababarkani ka heleen faa'iido isla markaana ay ugu faa'iideynayaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya. faa'iidooyinkan ka helnay tababarkan waxaa ka mid ah waxaanu ka helnay faa'iidooyin fara badan oo ka mid yihiin in laga joojiyo gabdhaha deegaankeena gudniinka maadaama arrin caadooyin xunxun oo ilaa hadda waqti dheer dabada la soo haystay ay yihiin in aan ka wacyigelino bulshadeena sidii loo joojin lahaa gudniinka fircooniga iyo dhammaan caadooyinka xunxun. waxaan u soo jeedinayaa dhammaan haweenka deegaanka oo dhan hadday tahay hooyo hadday tahay gabadh la guursan doono waxaan u soo jeedinayaa macalaabayaasha culimaawidiinka dhammaan bulshada deegaanka oo dhan in la joojiyo maadaama ayna diinteenuna sheegaynin in maxaan ku dhahay gudniinkii fircoon oo dee wuxuu ahaa la garanayo inaynan dabada haynin caadooyinka xunxunna aynan ahayn munaasab ahayn inaan dabada sii hayno maadaama jahlinimadii hore inoo keenaysay oon hadda dad wax bartay oo maxaan ku dhahay marba marka dambeysa sii ilbaxay aan nahay in aan iska dayno dhammaan gudniinka fircooniga iyo caadooyinka xunxun in lagu sameeyo gabdhaheena. labadii maalmood halkan uu ka socday wuxuu ahaa mid aan garanaysaa waxyaabo badan kaga faa'iideysanay. waxyaabaha kaga faa'iideysanay waxaa ka mid ahaa inay garanaysaa dadkii qabanqabayaashii ay noo soo bandhigeen dhibaatooyinka uu leeyahay dhinaca caafimaadka iyo waxyeelooyinka ay dumarku la kulmaan xilliga magaranaysaa gudniinka fircooniga lagu sameeyo xilliga magaranaysaa arooska ay ku jiraan waxyaabaha la kulmaan xilliga dhalmada waxyaabaha la kulmaan iyo nolosha dambe cawaaqibka ay ku yeelato run ahaantii wax aad looga xumaada ah waxyaabaha magaranaysaa dhibaatooyinka magaranaysaa ay la kulmaan. run ahaantii markii intaa dhibaatooyinka laga hadlay waxaa la isla qaatay in magaranaysaa gudniinka fircooniga uu nahayn dhibaato dumarka saaran ay tahay dhibaato dhammaanba rag iyo dumarba saaran isla markaana wax ka qabashadeedu ay tahay mid loo siman yahay. marka waxaa la isla qaatay magaranaysaa in hay'adaha kala duwan ee ka socda magaranaysaa kuwa dawliga kuwaan dawliga ahaynba si wada jira magaranaysaa loola diriro dhaqamada xunxun
isla markaana ma garanaysaa la gaaro meelaha maadaama dadkeenu ma garanaysaa bulshadeenu ay tahay bulsho aad u ballaaran in ka badan ma garanaysaa 68 degmo ay yihiin in ka badan 5 milyan ruux ay ku nool yihiin in bulshada wacyigelinta la gaarsiiyo isla markaana dadka la baro in sharciga Itoobiya iyo sharciga Islaamka labaduba una ogolayn tababarkan ayaa inta uu socday la isla qaatay in la sameeyo wacyigelin guud oo ku saabsan ciribtirka caadooyinka xunxun isla markaana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado ciddii lagu arko iyada oo ku kacayso falan la xiriira caadooyinka xunxun xubnahan ayaa sidoo kale isla qaatay in ay sii xoojiyaan kaalintooda kaga aadan dadaalada loogu jiro in lagu ciribtiro caadooyinka xunxun hay'adda OWDA oo kamid ah hay'adaha ka howlgala deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay hay'adda ku tala jirtaa in ay tababaro noocan ah ka bixiso degmooyinka Godi Dhanaan iyo Cadaado isla markaana ay xusid mudan tahay in tababaro noocan ay hay'adda ka soo bixisay degmooyin kale oo ka tirsan deegaanka Soomaalida Itoobiya dhawaana ay bilaabi doonto hay'adda ka wacyigelinta bulshada caadooyinka xunxun iyada oo kaashanaysa warbaahinta deegaanka sida ESTV iyo FM Jigjiga shaqaale ka socda xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kormeer ku gaadhay dugsiyada ku yaala gobolkaasi Qoraxay sidoo warkan inoogu sheegay markale Axmed Mataan kormeer ka socda xafiiska waxbarashada ee heer deegaan oo xaqiijinaya tirada iyo tayada waxbarashada ee dugsiyada gobolka Qoraxay iyo maamulka magaalada Qabridahar isla markaana xoojinaya abaabulka waxbarashada ee dadweynaha iyo maamulada degmooyinka ayaa kormeer hawleed ku soo maray xarumaha waxbarashada ee degmooyinka gobolka Qoraxay waxayna kormeerayaashani ay kulamo la yeesheen maamulada gobolka degmooyinka dugsiyada iyo maamulka magaalada Qabridahar iyo dadweynaha degmooyinka hadaba maamulka waxbarashada iyo kormeerayaasha dugsiyada ee magaalada Qabridahar oo kamid ahaa maamulada ay kulamada la yeesheen ayaa arrimaha ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayeen abaabulka xafiisyada iyo dadweynaha ee lagu horgelinayo xirmooyinka horumarinta waxbarashada oo ah barnaamijyo sare loogu qaadayo tirada iyo tayada ardayda sanad dugsiyeedkan 2005 isla markaana lagu xaqiijinayo xogta dhabta ah ee dugsiyada macallimiinta iyo ardayda ee sanadkan 2005 tirsiga Itoobiya mudane Shukri Maxamed Cali iyo mudane Ahmed Yusuf Nur oo ah khabiiro ka socday xafiiska waxbarashada ee heer deegaan ayaa kulankan ay la yeesheen maamulayaasha waxbarashada dugsiyada ee magaalada Qabridahar waxay macallimiinta kormeerayaasha iyo maamulayaasha dugsiyada ay u soo jeediyeen sida dadaalka macallimiinta uu wax uga bedeli karo teknoolajiyada iyo horumarka dalka iyo kan deegaankaba waxaana hadaladoodii kamid ahaa ololihii waxbarashada ee 2005ka ee aan abaabulka waxbarashada ugu magac daray ee aan ka wadnay gobolkan Qoraxay kaasoo ay ka mid yahay councilkan magaalada Qabridahar qorshahaas wuxuu ahaa qorsho la doonayo in laba dhinac labaduba saarayo oo ah in tiradii ardaydana la kordhiyo oo degmo walba iyo council walba wixii u qorshaysana sanadkan inuu soo xareeyo dhanka kalena tayadii waxbarashada iyadana wax laga qabto oo kor loo qaado run ahaantii waxaad ogtihiin deegaankeenna inuu horumar weyn oo xagga waxbarashada ah lagu tallaabsaday waad ogtihiin tirada dugsiyaasha deegaankeenna ka furan iyo tirada hadda 100 dugsi sare wax ku dhow ayaa hadda maraysa deegaankeenna taas marka waxay keentay in la sii laba jibaaro hawlihii laga qabanayay waxbarashada lana keeno dhammaan ubadka gaaray dugsiyeedka waxbarashada in dhammaan dugsiyada la keeno ha ahaato sero ka fil ilaa 12 waana in laga yareeyo drop out-ka iyo repetition-ka ardayda ka baxayaasha iyo ku dhacayaashaba ardayda macnaha ka baxaysa in la yareeyo ardayda ku dhacaysa waxbarashadana in iyadana la yareeyo marka haddaba si taas loo sameeyo oo loo helo waxaa loo baahan yahay abaabul fara badan in marka ugu horeysa la sameeyo abaabulkaas oo laga sameynayo dhinaca bulshada oo dhinaca aragtida bulshadu ay ka qabto waxbarashada in isbedel lagu sameeyo cidda isbedelka ku sameynaysaana waa qaybta waxbarashada maamul ilaa macallin laga gaarayo yaa inay ku sameyso dhinaca aragtida isbedel ay kaga sameysay tahay
ujeedada kormeerkan ayaa waxay ahayd hirgelinta xubnooyinka horumarinta waxbarashada ee sare loogu qaadayo tirada iyo tayada ardayda iyada oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamuladana laga qaybgelinayo abaabulka waxbarashada isla markaana la xaqiijinayo xogta dhabta ah ee ardayda macallimiinta iyo dugsiyada ee sanadkan 2005 tirsiga Itoobiya kusmaha madaxa xafiiska waxbarashada ee maamulka magaalada Qalbidahar Mudane Ibrahim ayaa dhinaciisa sheegay in ay sameeyeen dadaallo fara badan oo sare loogu qaadayo hanaanka barasbarasho iyo fayadhowrka ardayda iyo dugsiyada iyo waliba ka qaybgalka dadweynaha sidoo kalena ay tirada ardayda sanadkan gaarsiiyeen 10708 arday meesha sanadkii la soo dhaafay ee 2004 ay ahayd akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee meel kastood ka daawanayseen TV-ga Soomaalida Itoobiya waxa intaas inoogu idil war wixii aan habeenkan caawaan idiin hayno oo idin la socodsiinayay anigoo ah Faysal Maxamed Colaad tan iyo kulantideena dambe intaan warka xiga ku kulmayna hadduu ee baraali ka noqdo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh